فيد وناكسن أن اسمقلنا waxaan mar labaad idinku codsanayaa intaan barnaamijka si toos ah u furin sidaan idin sheegay kuraasta banaan inaan isku dhawaano si qofka markuu yimaado u sahlanaato inuu fariisto maxaa yeelay kuraasta qaar dhexda haday banaantu qof cusub yimaado inuu dadkoo dhan dhex maraa intay ku adkaan lahayd waxa ka fudud inteena fadhina inaan isku dhawaano si ay dadka soo gali doona ay meel fiican u fariistaan marka qaybaha dhaxan la hadlaya idinkoo raali ah haddaan ismaqalna aad u wanaagsanaan lahayd dhankaarna waa la mid kuraasta geesaha banaan oo dhan waxaan idin codsan lahaa inay idinku gudaha gashaan si qofka cusub markuu yimaado ee u sahlanaato intuu idin dhex mari lahaa idinkoo fadhiya inuu fariisto aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan rajaynayaa saacadan ama daqiiqadan aan taaganahay wixii ka dambeeyana inaan socodka yareyn doono barnaamijkan si toos ayaan u geli doonaa barnaamijkuna wuxuu si live uga baxayaa Muqdisho Cable waxa iyaguna nala jooga Balanbaalis Studio oo suurta galiyay inay dad badan oo halkan ku dhaaftay ay dib u daawadaan YouTube-ka marka barnaamijkuna si meel badan baa ayuu live uga baxaya marka dhaqdhaqaaqa iyo saxmadda iyo hadalkiina anigoo hal qof hadlay idinkoo iga tiro badan hadaa igu dul hadashaan marka waxaan rajaynayaa barnaamijkuna waa finalkii caawa marka ahmiyada badan buu leeyahay marka intaas aan isku ixtiraano waxaan istoos iminka u galeynaa barnaamijkeena waxa iyaguna inala jooga kooxda sidii calwinkii inoo hogaaminayo xagga music inoo qaabilsan marka waxaan filayaa in qof walba uu diyaar yahay mudanayaal iyo marwooyin ku soo dhawaada habeenkii kama dambaysta ahayd barnaamijka heesaha iyo hibada jiilka cusub dabcan barnaamijkan qaybtiisii ka horeysay ee semifinalka ahayd ayay in badan halka nagala soo qayb gashay in badan nagala socotay dunida daafaheeda iyadoo isticmaalaya aaladaha kala duwan ee haday noqon lahayd dhanka saxaafadda ama dhanka social media balse barnaamijkan wajiyay intaas ka duwan ayuu soo maray heerar kale ayuu lahaa caawna waxaan joognaa heerkii ugu dambeeyay ee kama dambaysta ahayd ama finalka ahayd ee lagu ogaan lahaa qofkii ku guuleysan lahaa kaalinta koobaad kaalinta labaad kaalinta saddexaad iyo afraad iyo shanaad iyo lixaad oo ah lixda qof ee ugu dambeysay ee barnaamijku tartamaya mudanayaal iyo marwooyin barnaamijkan waxaa loogu talagalay in dib loogu soo nooleeyo fankeena iyo hibadii iyo sharaftii uu lahaa fankeena iyo suugaanta Soomaaliyeed sidaa daraadeed waxaanu qaylo dhaandheer u dirnay dhalinyaro Soomaaliyeed si ay codadkooda xambaarsan hibada u soo rogaal celiyo luuqdii laxankii jiibtii iyo jaantii Soomaalidu lahayd oo nala badbaadiya fanka lagu rafaadiyo codadka lagu dheeli tiray kombiyuutarka codadka lagu dhalan rogay kombiyuutarka ee dadweynaha loogu qaado playbacka si aynu u wada ogsoonahay dhalinyarada jecel fanku waxay inta badan la kulmaan niyad jab hanwiiqid ama hoos u dhigid sharafkooda maadaama ay shardiyo kala duwan ku heeraarsan yihiin baahiyaha dhalinyaradaas tartankani waxa uu fursad u yahay dhalinyarada hankoodu yahay inay noqdaan fanaaniin inay helaan dariiq wanaagsan oo ay fan ku soo galaan inay helaan madal ay ku soo bandhigaan hibadooda korna ugu qaadaan tayada soodkooda macaan tartankani waa madal ay dhalinyaradu maanta ku noqon karaan fanaan sugan dib u nooleyn kara fanka iyo suugaanta Soomaalida ama hobol ay taariikhdu bari xusi doonto doorka uu maanta ku leeyahay fanka haddaba mudanayaal iyo marwooyin waxa suurtagal ah sidaan toddobaadkii hore idin sheegayba qaar badan oo naga mid ah inaysan fursad u helin inay tagaan tiyaatarkii faca weynaa ee fanka Soomaalida lagu soo bandhigi jiray si ay u daawadaan Xasan Aadan Samatar Magool iyo dad badan oo lamid ahaa fanaaniintii hore oo aan fursadahan oo kale heli jiray inay heesaha hirgale ku tartamaan dad baa taariikhdu xusi doonta ama ka sheekeeya waagaas iyo siday Soomaaliya ahayd balse in badan oo bulshada Soomaaliyeed kamid ah oo 70% ay soddon ka yar yihiin fursadaas mayna helin balse waxay fursad u heleen caawa inay markhaati ka noqdaan tubeeca xigi doona ama magoosha xigi doonta ee fanka Soomaaliya dib u soo nooleyn doona waxa orahdan iskala nin saaxiibkay oo caawana inala jooga oo Bashiir Maxamuud la yiraahdo waxa uu yiri geeri iyo gabow iyo god aakhira ayay u bateen gabdhihii iyo raggii saldhiga u noqday fankeena faca weyn mid kasta ama mid kale kama dhicin waxayna ahaayeen hanti qaranku uu leeyahay waan ilaa ay hadda xasuusteena ka go'in luuqda codadkooda macaan iyo suugaantooda macnaha lahaa ayaa wali wehel iyo xasuusi noo ah haddaba caaw waxaynu heli doonaa
dhalinyaro aan xasuus noo noqon doonin balse aan markhaati annagu ka noqon doono waxaan rajaynayaa lixda tartame qof walba ay nasiibkiisa iyo guul wacan ayaan u rajaynaynaa haddaba qaar badan oo idinka kamid ah waxaa suurtagal ah inaysan nala joogin habeenkii semifinalka aysan kala aqoonin lixda qof ee ugu dambeysay intayna heesaha u gelnaa iskiin baro idinka iyo dhalinyarada caawa madashu u shidan tahay waxaan u yeerayaa nuur cabdullaahi xuseen waxaa ku xiga cabduqaadir muxiidiin kulmiye waxaan u yeerayaa saare axmed jimcaale maxamed cabduqaadir maxamed nasteexo cabdikariin axmed iyo kama dambaystii cabdiweli ibraahim maxamed lixdan tartame ee dhabarkayga taagani waa lixdii u soo gudubtay kama dambaysta ama finalka barnaamijka aan caawa isoogu nimid lixdoodaba waxaan fursad u heli doonaa ay ku horeysaan dhammaantiin idinka iyo dabcan guddiga garsoorka barnaamijka guddiga garsoorku waxa uu ka kooban yahay 40 qof ee aan filaya qaarkiin inta badan inay wada taqaanaan balse haddaan mar labaad idin xasuusiyo waa cabdirasaaq axmed geedi aakhiro shimaali axmed shimaali yuusuf maxamed maxamuud iyo daawud yuusuf maxamed daawud xafar 40 garsoorana waxay u kala garsoori doonaan 60 tartame oo ku tartami doona barnaamijka caawa qaybtiisa ugu dambeysay ee finalka waxaan leeyahay nasiib wacan waana mahadsantihiin dabcan sidaan idiin sheegay barnaamijku caawa waa finalkii waxaana si toos ah barnaamijkan uga baxaya Muqdisho Cable TV waxa dhan kale iyaguna muuqaal baahiyaha YouTube-ka ee isticmaali doona Balambaalis TV waxaana barnaamijkan suurta geliyay fikirkiisuna ahaa wadnaha FM codka dhalinyarada oo aad ka dhageysan kartaan 96.2 haddaba waxaan filayaa caawa inaan war badan iyo hadal badan la iga baahnayn waxaan wada sugaynaa ay tahay inaan markhaati ka wada noqono qofka ugu horeeyay ee barnaamijka ku guuleysan doona dabcan barnaamijkanu waxay ahayd markiisii koobaad barnaamijyo badan ayaa xigi doona waxa laga yaabaa barnaamijka qofka xigi doona ee ku guuleysan doona gabadha ama wiilkaba inuu caawa howlka nala fadhiyo ay dhiirigelin u noqoto barnaamijkan haddaba waxaan imika si toos u galaynaa barnaamijkii heesaha waxaan u yeerayaa qofka ugu horeeya ee 6 tartam caawa heesi doona waa nuur cabdullaahi xuseen fadlan ila soo dhaweeya nuur cabdullaahi xuseen
tuurin daaqadaye dawadii qalbiga ay ku doondoone dawadii qalbiga ay ku doondoone darbiyo hayga tuurin daaqadaye dayaxa sare waa la doodayo daruurta cirkaan la darisahayo dayaxa sare waa la doodayo haa daruurta cirkaan la darisahayo dabaysha sare dawaafaysiyo darceel la dhigtaan dabaashaaye dayaxa sare waa la doodayo haa daruurta cirkaan la darisahayo dayaxa sare waa la doodayo way daruurta cirkaan la darisahayo dabaysha sare dawaafaysiyo darceel la dhigtaan dabaashaaye dawadii qalbiga ay ku doondoone dawadii qalbiga ay ku doondoone darbiyo hayga tuurin daaqadaye dawadii qalbiga ay ku doondoone dawadii qalbiga ay ku doondoone darbiyo hayga tuurin daaqadaye darbiyo hayga tuurin daaqadaye alla darbiyo hayga tuurin daaqadaye waxaan leenahay derbigii ah ka tuurin daaqadda weli waxaan ku guda jirnaa weli waxaa kaasina wuxuu ahaa tartamihii koowaad iminkana waxay noo xigi doonaa tartamaha labaad waa cabdiqaadir muxiidiin kulmiye ila soo dhoweeya
سبتمبر 2019 وهبين تاريخية وهبين أي تاريخي قرميسو وهبين المرخاتي كنا هاي فنان أما فنانة عصب أو ستوس أو صبيري دون تفنك الصوماليات طبعا قفك كقول استكلي كم صبيري دون فنك لحظة فن ترتمى يالبا وحاس ليا هاي لحظة بيني وذا قولستين ومسنا هاي لحظة بوحاس ليا جودي جاي هوش قوات كنا يانو فنان كدنا بيمركوسي هسعود كيسيو هستو وكوسي وذا راح سنة بس نصيبكو يقدر موضة سين دون كالينتو كوباد يلبادي سدحات إلا اللحد يا لو ذا جلي دونا بس واحد رجعنا تاريخ ذا عاو مرخاتيك كنا هاي إنه واحد بدن كبدلي دونتو هبك وياه عندما بفنك يجوها أدمودي قفل باينتو CD إسكشتو كمبيوترنا CD سوقاتها من USB أما تلفكي سبا إنه في لين تنوجلي ونوهسو بس عاو موسيقى توصل لجراعيو لوغدا أما عدك فنانين تنايسي توصل عن مرخاتيو وذنا هاي waxaa imika dhageysanay laba tartama oo xagga ragga aha imika waxaan galeynaa xagga gabdhaha waxaan u yeerayaa tartamaaga saddexaad waa Sahra Ahmed Jimcaale ila soo dhaweeya waxaan rajaynaynaa baa u naxariistay fanaanadii weyneyd Sahra Ahmed Saaradii Ahmed di bedel leedin ay noqoto aan idin kala baxo idinkiyo Sahra
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay saare axmed jimcaale iminkana waxaan u gudbaynaa tartamaha afraad waxaana u yeerayaa maxamed cabdiqaadir maxamed ila soo dhaweeye
weli waxaan dhexda uga jirnaa barnaamijkeena heesaha iyo hibada jiilka cusub kaasina wuxuu ahaa tartamihii afraad waxaan iminka u gudbaynaa tartamaha lixaad waxaana u yeerayaa shanaad raalli ahada nasteexo cabdikariin axmed dayax ila soo dhaweeya nasteexo
waxaan leenahay yaa ka goosan hee caawaad ka gacan sarraysaaye taasina waxay ahayd tartamaagii shanaad ee barnaamijka caawa ku tartamayey waxaan u yeerayaa iminkana qofkii ugu dambeeyey 6 tartamaa dabcan marka uu tartamaaga 6 tartamaa waxaan fursad siin doonaa ay guddigu ku lafaguraan wixii ay markhaatiga ka hayeen annaguna markhaatiga kala ahayn balse annagoo dhan xukunka ma wada gaari karnee 4taas qofood ayaan go'aanka u daynaynaa iyagoo wakiilna ka ah bulshada inteeda kale kadibna waxa ay go'aamin doonaan sidaan ballanteenu ahaydba caawana kama dambaystii tahay qofka kaalinta koowaad labaad saddexaad iyo saddexda kalena afraad iyo shanaad lixaad sida loo kala galay kadibna waxaan soo gabagabayn doonaa barnaamijkeennii waxaan iminka u yeerayaa tartamaaga 6aad cabdiweli ibraahim ila soo dhoweeya cabdiweli كو لابا صدح ها كو ها عندي 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 كو ها كو ها كو الدنيا قرعنا الدنيا خربنا قيل
aad ayuu maasan yahay Cabdiwali Ibraahim oo ah tartamaagii lixaad ee caawa ku tartamaya barnaamijka heesaha iyo hibada jiilka cusub dabcan waxaan soo gaarnay intii aan isoogu nimid inaan markhaati ka wada noqono qofka koobaad labaad saddexaad ilaa iyo lixaad sida loo kala gelayo waxaad moodaa baaqi aan u dirnay dhalinyaro Soomaaliyeed oo leh dhalinyaro Soomaaliyeed oo leh codad xambaarsan hibo soona rogaal celiya fankii Soomaaliyeed inay caawa baaqi ka soo jawaabeen waad idinkuna markhaati ka noqoteen cod aan la dhalan rogin computer aan laga shidin balse si toos ah loo qaadayay muusigana si live loo garaacayay inaan caawa wada joognay dabcan guddiga inta uu ka shaqeynayo ama qoraaladii ay qoraan inta iyagu isku celcelinayaan xisaabta ay noo sheegi doonaan sida loo kala dhibco badan yahay guddiga ayaan fursad siin doonaa kadibna iyaga ayaa inala hadli doona bismillaahir rahmaanir rahiim dhammaan ka soo qaybgalayaasha habeenkan quruxda badan tartankii muddada dheer soo socday tartanka heesaha iyo hibada jiilka cusub oo caawa inuu gabagabadiisii joogno lixdii qof ee u dambeeyay ee finalka isugu yimina caawa halkan inooga heeseen dhammaantiin waan idin mahad celinaynaa bannaankaan u bixi doonaa caawa way ka duwan tahay habeenadii hore halkan baanu wax ku qorqori jirnay kadibna go'aan baanu ka gaari jirnay laakiin caawa bannaankaan isula baxaynaa intaanu maqannahay waxaan rajaynayaa inay fanaaniintu idiin sii heesaan guddiduna bannaankay u baxayaan waa mahadsantiin waxaan idinka codsanayaa guddiga mooyaane inteena kale inaan sidaan u fadhinaa u wada fadhino
xilligii dhaqdhaqaaqa iyo socodku waa dhammaaday waxaad moodaa xilligii qaybtii ugu dambaysay ee markhaatiga nool aan ka noqon lahayn caawa fanaanka ama fanaanada cusub ee kusoo biiri doonta fanka bahda soomaaliyeed inaan markhaati ka wada noqonno guddigu dabcan waxay u baxeen waa inay doodaan siday aragtidooda la tahayna iyagu isku soo raacaan kadibna iyagoo wakiil ka ah intan ka badan 300 ee qof ee fadhida hoolka ay go'aan noo gaaraan ay tartankana sida kaalinta koobaad labaad iyo saddexaad ku bixiyaan dabcan waxaan leenahay nasiib wacan 6 tartame ee caawa iyaguna markhaatigaan u noqonayno haddaba idinkii sidii idin kala baxo waxaan idinka codsanayaa qolooyinka maamulka ayaa xagga maamuuska inay albaabka xiraan fadlan idinkuna ha wada fadhidaan intay guddiga dib inoogu soo noqonayaan aad iyo aad ayay u mahadsantihiin cd dhallinyaradaas ku tartamaysa qofka koobaad geli doona dabcan macnaheedu ma ahan kan koobaad gelin inuu guul daraystay balse isaguba ama iyaduba waxay naga mudan tahay dhiirigelin ah in tartanka qaybtii ugu dambaysay ama finalka ay soo gaareen ay la soo tartameen in gaaraysa 190 dhalinyaro ayagoo 6 ay kaalinta ugu kama dambaysta ku tartamaani waxay muujinaysaa kartidooda iyo codadkooda basiiyay hibada ay u leeyihiin anaguna fursad u helnay inaan caawa ku dhageysano waxaana leeyahay nasiib wacan daqiiqada kadib waxaan ogaan doonaa qofka kaalinta koobaad gala guddigu waxaad moodaa waqti badan bay dibadda ku wada maqnaayeen waxay intaas soo lafagurayeen ama ay ka soo doodayeenba sida loo kala siin lahaa kaalmaha koobaad iyo labaad iyo saddexaad iyo afraad iyo shanaad iyo lixaadba saan idiin sheegayna guddigu way ku adkaan doontaayoo waxaan ogaa ama aad ila wada ogtihiin oo markhaati ka tihiin qofba qof kale inuusan ka yaraysanin intii aan markhaatiga ka ahayn balse inteenno idili waxaan markhaati ka noqon doonaa qofka kaalinta koobaad geli doonaa guddiga ayaan mikrafoonka siin doonaa waxaan idinka codsanayaa nafsadayda iyo nafsadiina u sheegayaa inaan ku kalsoonaano guddigu waa annagoo kale waa xukmiyaal waxa ay xukminayaan dabcan maahan aragti shakhsi ahaaneed oo annaga waxaa laga yaabaa haddii shakhsi naloo weydiiyo sidaan u aragna ama sidaan jecel lahay inaan si uun oran lahayn balse guddigu waa 4 qofood oo 4 qofood way kala fikir duwan yihiin iyagoo kala afkaar duwan ayay wax ka munaaqashoodeen wax ka wada doodeen doodoodii ama fikradoodii kala duwanaana ay isla garteen hebel iyo heblaaye ayaa saas mudan hebelna ama heblaaye sidaas bay mudan tahay taasna waan ku tixgelinaynaayoo maxaa yeelay fanka ama aqoonta ay u leeyihiin iyagoo fanaaniin ah abwaaniin ah inaan ku tixgelinno mudnaashahaasna aan ku siinno wixii ay noo xukmiyaanna aan raalli uga wada noqonno dabcan laga yaabaa inay qaarkan yidhaahdaan maye kaalintaas hebel ama heblaaya ku fiicnayd balse sidaan rabno ma wada noqon doontee sida iyagu noo xukmiyaan ayaa ku qanci doonaa iyaga ayaana guddiga garsoorka ah barnaamijkana cadaalad ku soo waday cadaaladna noogu dhammayn doona caawa marka waxaan idinka codsanayaa dhaqdhaqaaqa iyo aan yarayno waxaan soo gaarnay intii aan wada sugaynay aan idiin sheegay caawadii hore inaan markhaati ka wada noqon doono fanaanka ama fanaanada cusub ee kusoo biiri doonta fanka soomaaliyeed idin kala baxo idinka iyo guddiga waxaan mikrafoon ku wareejinayaa guddigu dabcan waxa uu sheegi doonaa sida kaalmaha loo kala galay kadibna shahaadooyin ayaa la guddoonsiin doonaa marka sawaxanka dhaqdhaqaaqa iyo hadalka halkaas ay noo joogo idinka iyo guddiga idin kala baxo ila soo dhaweeya guddiga garsoorka barnaamijka heesaha iyo hibada jiilka cusub oo ah caawa habeenkii ugu dambaysay ama finalkii aan markhaati ka wada noqon doono ka wada nahay boqolaalkeenna halkan fadhiya waxay inoo dheer boqolaal kale inay si toosa uga daawanayaan muqdisho cable tv oo si live u tabinaysa barnaamijka marka fadlan ila soo dhaweeya shimaali axmed shimaali oo aan mikrafoonka markuu aad u dhiibi doono guddigana ka mid ah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هرت جدّيجا نين ولي بقلن وهيستا قلن كأنيج الشمالي هيستو نين كان نموجا آخر نموجا دت كأن وضد داونينا مدين قل لحظة ما بكر اللي تان أي هاين مرك لكن جري لبقف كم وضد قصليسو قلنك أنيجا وحبان قري أسيجا وحبو قري آخرنا وحبو قري مركا تاس كوكل صونادا إذن كو جدي أنا كو جدي
daawadayaasha oo guddi ah insha allah teeni qaata waana mahadsantihiin aakhiraan u dhiibayaa waa tahay shimaali axmed shimaali oo waayo arag faneeda heesaa cajiiba aqoon xeel dheer u leh fanka haddaan kala wareego codbaahiyaha waxaan intaa ku darayaa 6 hortiina ku tartamay ee aad markhaatiga ka tihiin idinka iyo intii adduunyada ka daawanaysay maadaama life loo daawanayay inta mar kale haleeli doontaba waa 6 runtii aad u diyaarsan taariikhda fanka Soomaalida may soo marin 6 sidaasa oo codadkoodu sidaa u sareeyo oo hal goob ku tartama waa markii ugu horeysay sidaa daraadeed 6duba waa 6 muhiima oo fanka ama heesida looga baahan yahay ummadda Soomaaliyeedna qancin doona oo ay codkooda u bogi doonto taariikhdana galay weeye inta kadib dee haddana iyadoo ay sidaa too 6dooduba muhiim yihiin dee kaalinta koowaad iyo labaad dee waa nasiib markaa ka labaad gala ama saddexaad gala ama afraad ama shanaad ama lixaad yuu is odhanin dee waad fogaatay oo waa lagaa dheereeyey yuu is odhane ha is ogaado waa dhibco waxa lagu kala badinayaa ha is ogaado inuu yahay horyaal 6duba waa horyaal runtii waa hagaag waxaan bilaabaynaa xaliimo ii soo dhawow waa hagaag waxaan bilaabaynaa ku dhawaaqidda waxaanu haddaanu guddigiinahay garsoorka ee tartankan heesaha iyo hibada jiilka cusub garsoorayay haddaanu nahay waxaanu hambalyo iyo mahadnaqba iyo bogaadinba iyo ammaanba siinaynaa idaacadda wadnaha FM codka dhalinyarada ee si wadaninimo hawshan u fuliyay ee u qabtay bulshada Soomaaliyeed meel kastoo joogtana dibad iyo gudo caalamka meel kastoo kala joogtana ay ku qanceen raallina kana noqdeen sidaasna ay marag uga yihiin oo ay goobjoog uga yihiin kuna qanceen inta kadib waxaanu shahaado ama kaalin sharafeed muhiima oo qaayaheeda iyo qiimaheeda la siinaynaa Axmed Cabdulle Xasan oo ka mid ahaa 12 ku tartamay doorkii hore aad way waa hagaag أحمد عبد الله حسن وسمي فينالكي هاي أحمد محاضر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام دمان جدية إيه كسوق قيب جلاش ترتن كان مالك يقول رئيسي أن كسوق قيب جلاية ترتن كا وحائري جدية إيو كسوق قيب جلاش دمان وحأرو جينا نسيب وعن سيدان جعلنا وين قطي ترتن كان كليو كوميكو إذا عدودنا FM سيدي بلنقات دي ترتمك لا حيجي دونه دمان وحوهم بلينا اللي حد قف إيه صوب هذه وحارب إن هالكان كشيء dadka dhaha muqdisho fan ma yaalo naga xishoodan wixii caaw ka dambeeyo intaas ugu baxaya aad u maadsantihiin hadal badan masii dhigi kara farxadda ay ka tan badan waa salaama dhamaan aad iyo aad baad u mahadsantahay aad iyo aad baad u mahadsantahay Axmed Cabdulle Xasan ya waaye
kaalmihii baynu u gelaynaa caawa tartankan lixdii ku tartamayay kaalmahoodii inaynu kala siino isla markaana guddoonsiino shahaado heer caalamiya waa hagaag nuur cabdilaahi xuseen kaalinta lixaad ayuu ku guulaystay nuur cabdilaahi xuseen nuur cabdilaahi xuseen nuur cabdilaahi xuseen waa hagaag kaalinta shanaad waxaa ku guulaystay zahra axmed jimcaale kaalinta shanaad kaalinta shanaad kaalinta shanaad عادي قبل سارة عادي قبل الشاي عادي قبل جاي واي تكلم ان كالنتا افراد محمد عبد القادر محمد ايا كالنتا افراد ku guulaystay عاديات تشهد واي kaalinta saddexaad tartamayaashii tartanka heesaha iyo hibada jiilka cusub ee caawa waa nasteexo cabdikariin axmed waa hagaag bal haddaba maxaad filaysaan bay ila tahay kaalintii labaad baa la soo gaadhay labadii ugu dambeeyey ayaa la soo gaadhay bal hadda labada kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad intaanan ku kala dhawaaqin aan u yeedho cabdiweli ibraahim maxamed sooka adna cabdilqaadir muxiidiin kulmiye adna sooka waa hagaag labadooda maxay kala noqonayaan haddaba kaalinta labaad ee tartanka heesaha iyo hibada jiilka cusub waa cabdiweli ibraahim maxamed guddoonsiye agaasimaha idaacadda wadnaha ayaa guddoonsiinaya
waayahay kaalinta koowaad ee tartanka heesaha iyo hibada jiilka cusub waa cabdulqaadir muxyadiin kulmiye shimaali axmed shimaali ayaa guddoonsiinaya waxaan idinka codsanaynaa inaad fadhidaan guulaystaha heestii ayuu ku celin doonaa mar labaad marka fadhiya si aan markhaati ugu wada noqonno marka fadhiya suga wax yar suga fanaaniinta intii heestay 1 2 3 4 5 6 ilaa 6 kulli way fiican yihiin waan u baahannahay annagu haddaan fanaaniin iyo guddi aan guddida nahay si xaqaan u qaybina annagu dee uma qaybinayno si macnaha garab yahan laakiin annagu fankii baanu nahay kuwii hore iyo kuwii dhexe iyo kuwii dambe waan isugu jirnaa marka sida uu xaqu yahay baan ayaan qofka aan shahaadadiisa aan u guddoonsiinaynaa waxaana jeclaan lahayn inuu noo qaado shamaali inuu guddoonsiiyo horta bil shahaadada fanaankii ugu horreeyey tartanka ku soo baxay kaalinta koowaad marka welcome soo dhaweey hotel fanaan haye shamaali waxaan ku leeyahay cabdulqaadir muxudiin kulmiye iga guddoon shahaadadan idaacadda wadnaha ay kugu talagashay iyo annagoo dhan aan kugu talagalnay waad mahadsan tahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay aakhira iga qabo waayahay waxaan leenahay hambalyo waxaan caawa taariikh markhaati ka wada noqonnay tartamayaashii barnaamijka heesaha iyo hibada jiilka cusub oo uu ku guulaystay cabdiqaadir waxaan leenahay cabdiqaadir hambalyo cabdiwelina waxaan leenahay cabdiqaadir cabdiqaadirna waxaa cabdiwelina waxaan leenahay hambalyo kaalinta labaad nasteexana kaalinta saddexaad sidii kale afraad iyo shanaad loo kala galay waxaan leenahay dhammaantiin waa wada dadaasheen qof walba oo idinka mida waa guulayste qof walba oo caawa markhaati ka ahna meesha waa guulaystayaasha ayuu markhaati ka ahaa waxaan intuusan fanaanka heestii uu ku guulaystay noo qaadin waxaan kelmadda ugu dambaysiinayaa agaasimaha radio wadnaha FM radio inuu kelmad kooban yiraahdo kadibna fanaan cabdiqaadir heestii uu ku guulaystay caawa barnaamijka ayuu mar labaad noo qaadi doonaa heestaas ayaanu ku soo xiri doonaa marka kelmad kooban aan wada fariisanno heesta ugu dambaysa saa markhaatiga aan caawada wada dhammaystiranne heesta ugu dambaysana ku wada raaxaysanno kadibna insha allah waa kala hooyan doonaa marka ila soo dhaweeya agaasimaha abu agaasima yuusuf cabdirasaaq aad baad mahadsan tahay habeen wacan oo wanaagsan aad baan ugu faraxsanahay runtii dhallinyaro codadkay ku heeseen caawa halkan inaad ku aragtaan waan isu mahad celinaynaa caawa haddaanu nahay wadnaha FM guul taariikhi aanu gaadhnay guul taariikhiya oo dadkayaga iyo dhallinyaradaydu ay ku suntan yihiin baanu caawa magaalada muqdisho ee caasimadda ummadda soomaaliyeed dusha kaga qornay waxaa farxad noo ah in dhallinyaro la mida kuwii halkan ka heesayey ay caawa ku caawiyeen sacab mushxarad iyo dabaaldeg farxad ka weyni ma jirto dhallinyaro qaarna heesayaan qaarna ay ka soo qayb galeen goobtii ku heesayeen magaalada muqdisho waa magaalo bulsho badan ay ku nooshahay idaacadda wadnaha FM oo codka dhallinyarada ku hadasha maalintaanu tartanka bilaabaynay waxa laga yaabaa dad badan oo Soomaaliyeed inaanay aaminsanayn tartanku meesha uu caawa joogo inuu gaari doono laakiin awoodayada iyo jacaylka dhallinyarada aanu jecelnahay waxaanu ku suurto gelinay inaad caawa makhraati ka noqotaan wixii quruxda badnaa ee halkan ka dhacay way ka dhici doonaan marar badan oo ma aha tartankani kii ugu horreeyey kii ugu dambeeyeyna noqon maayo dhallinyaro badan baa jirta oo hibooyin leh hiboolayaasha hooyadooda la jooga hibadooda wadnaha FM wuxuu u istaagay inuu bannaanka keeno si looga faa'iideysto dadkuna uga faa'iideystaan qarankuna uga faa'iideysto wadnaha FM runtii waa idaacad muddo yaroo kooban furan
haddana waxay aad ugu dadaashay inay dhallinyaradaas aad caawa arkaysa soo saartay dhallinyaradu waxay u baahan yihiin cidna u daba fadhiisan maayaan inta idaacadda wadnaha fmkeedu uu taagan yahay kuwooda hiboolayaasha ah ee afka ka heesa iyo kuwa gabayada tiriya sidoo kale yaan ka tegin hormuudka dhallinyarada soomaaliyeed oo ah hablaha kuwa buraanbura xataa waxaan u qaban doonaa tartan si iyaguna kaalintooda uga qaataan wadnaha fm wuxuu u taagan yahay dhallinyarada soomaaliyeed runtii aad baan ugu faraxsanahay aad baan ugu mahad celinayaa guddidii qiimaha badnayd ee hawshii aad arkayseen dadaalkeeda iyo u baahnayd juhdiga ila soo qabtay uu ka mid yahay macalinkaygii abwaan cabdirasaaq axmed geedde aakhiro bara jaamacadeed oo wax ka dhiga jaamacadda ummadda soomaaliyeed fanaanku dayasho mudan shimaali axmed shimaali sidoo kale walaalkay daa'uud xanfar isaga walaalkay baan odhanaya waa dhallinyaro iyo runtii tiimkii musishanka halkan igala soo shaqeeyey wadnaha fm waxay caawa qabatay inta iyadanoo keliyata maaha waxaa jirta qayb mudnayd inaanu caawa halkan sida dhallinyarada loogu maamuusay aanu ugu maamuusno oo iyaguna caawaan halkan goobjoog ku ahayn waxay mudnaayeen annagoo aan qarinaynin annagaa sheegayna idaacadday ku maqan yihiin iyagana guulaystaan leenahay dadkiina garab taagnaa waxaa jirta xidigta wadnaha xalime axmed aad baan ugu mahad celinayaa la'aantee tartankani muu suurto galeen xalime aad baad u mahadsan tahay walaalkay cabdikariin oo isaguna mashiinka wadnaha fm uu ku shaqeeyo saaxiibadii kale ee mudnaa tabaftirahaygii saaxiibkii guuleed sabriye oo aan jeclaa caawa halkan inaan ku maamuuso laakiin waxaan jeclahay inaan hab siiyo saaxiibkii waan jeclay inuu soo kaco guuleed soo kac guuleed waa tabaftiraha idaacadda wadnaha fm waa halgamaa u soo dhabaradeegay tartankani inuu caawa suurto galo in dhammaanteen sidaan u wada faraxno aad baan u soo dhaweynayaa guuleed soo dhawow way mudnayd saaxiibka inaan caawa halkan shahaado ku siiyo laakiin waxaan siiyey shahaado aan warqad ahayn oo aan ku qornayn warqad qalinna aan loo qaadan oo aha qalbigayga saaxiib aad baad mahadsantay guuleed waa tabaftiraha idaacadda wadnaha fm aad baad mahadsantay walaan cabdirasaaq baan ku wareejinaya cabdifataax aad baa u mahadsantihiin guulaysta waanu idinla faraxsannay idinkuna nala farxa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad u mahadsan yahay agaasime yuusuf dabcan waxaan caawa markhaati ka wada noqonnay barnaamijkaas ay soo agaasintay bahda wadnaha fm guulaystiisana uu garab taagan yahay dabcan cabdiqaadir muxiidiin kulmiye waxa uu ka mid yahay dhallinyarada soomaaliyeed qof walba oo naga mid ahayna waxa uu leeyahay taariikhu gooni ah dabcan cabdiqaadirna maalintuu imanayay barnaamijka ismuuna lahayn barnaamij sidaas u weyn oo ummadda soomaaliyeed dal iyo dibadba inta joogtay inta muuqbaahiyaasha kala duwan naga daawanaysa ayaa markhaati ka noqon doonta guushaada balse waxay isaga iyo dad badan islahaayeen barnaamijka nasiibkiina tijaabiya kuwo badan oo naga mid ahay caawa jooga ama aana jooginna waxay islahaayeen barnaamij madadaaliya ciyaara ayay moodayeen qaar badanna infact ay dacaayad ka dhiganayeen facebooka ama baraha kale barnaamij waxaan oo kalaa socda balse isma lahayn quruxdiisu inay sidan u dambayn doonto waxaan leenahay aaminsannahayna kuwa halkan fadhiya iyo kuwana daawanayaba inay iyaguba hibo cod leeyihiin hibo sugaaneed leeyihiin waxaan leenahay barnaamijkan waa barnaamijkiinnii weli isqoristu way socotaa barnaamijka qaybtiisii kale tartamayaasha qof walbow haddaad wax isku hayso istijaabi waxaan idiin rajaynayaa sanadkan iyo barnaamijkan ka xiga isagoo halkan ka weyn inaan ishornimaanno waxaana farxaddii gaar ah inaan taariikhda ka galo inaan ka mid noqday qofkii barnaamijka xiriirinayay barnaamijkii ugu horreeyey caynkiisa ee xilligan jiilkayga dhaca ee heesaha iyo hibada jiilka cusub aan caawana markhaati ka wada noqon aad igala noqotaan guulaysta cabdiqaadir muxiidiin kulmiye heestii uu caawa qaaday iyo isagaa idiin kala baxo fiidku hay noo wada wacnaado habeen wanaagsan heesta kadibna waxaa iyadoo kale xusuusin mudan shahaado unbaad aragteene tartamayaasha guulaystay koobaad iyo labaad iyo saddexaad kala gale waxay heleen kaalmo dhaqaale oo ilaa iyo lixaadba dhaqaale lacag lacageed ayaa iyaguna lagu tartamayo oo ay ku guulaysteen keliya waraaqo iyo shahaado qalalan maynu ku guulaysanne jabkuna uu qoyaya caawa waxaan leenahay waa mahadsantihiin fiid wanaagsan waxaanu ku soo xiraynaa barnaamijka heesaha iyo hibada jiilka cusub iyo fanaanka cusub cabdiqaadir muxiidiin kulmiye
وبحوض اللاعب ودي نفتيدا يهون تنقى دورتا سيدة ضيحة نوراي هبدر الهلاعي وقالك دارولتاي وبحوض اللاعي دودي نفتيدا يهون تنقى دورتاي سيدة ضيحة نوراي هبدر الهلاعي وقالك داروتا درمان جلاي إلا واكو ديرايا دقمداكو قارسي ولقو دبال دقي دربانا لقو تومي درمان جلاي إلا واكو ديرايا دقمداكو قارسي ولقو دبال دقي دربانا لقو تومي وحي قدر دارنا دعاء ما نقضي دودي يا داري قالوا ورحنا دلالي نتكو أباهاي يوديقي هو يا دان خوي وحي قدر دارنا دعاء ما نقضي دودي يا داري قالوا ورحنا دلالي نتكو أباهاي يوديقي هو يا دان أتغني أهوي دادوي أهم قدودا أتغني أهوي دادوي أهم قدودا كنت قال المايان ولدود المايان كونا طير المايان قلوا كدرارا أرقوا كدرا يا هاي عاناها دور دورو كدقال المايان كل دود المايان كونا طير المايان قلوا كدرارا أرقوا كدرا يا هاي عاناها دور دورو دبالن دونتا دبل بالغو لسين دقيا لغو غوران دميا لغا غاران هورتا تبركالا اوغو دبالن دونتا دبل
lagu lisay doqoya lagu xaman dadmaya laga gaaran owrta dabarka la ogo waxayga dardaaran ducadu ma Ganay